caanka ee Bollywoodka Sanjay Dutt waxa uu dhashay 29 Julaay sanadku markuu ahaa 1959. Waxaa lagu naanaysaa magacyo fara badan sida Sanju, Baba, Muna iyo Rocky, iyadoona Soomaalida u taqaana Altimoda. Waxa uu jilista aflaamta ku soo biiray sanadkii 1971 isagoo jilay doorka ciyaal ama caruur ka dhex muuqda filimkii la oran jiray Rashma Aur Shara, soo saare uu ka ahaa aabihiis, iyadoona wax uu ka jilay filimkaasi Amitabh Bachchan Cali Dheere. Sanjay Dutt markiisii ugu horeysay uu jilo aktar buuxa ee filim loo dhiibo waxay ahayd sanadkii 1981 filimkii la magac baxay Rocky. Filimkaasi ayaa ahaa mid action ah saameyn weyn ku yeeshay Bollywoodka, iyadoo dhibaatada haysatay Hindida ahayd inuusan jirin atoore jili kara filim weji qamarji ama dilaa aan cabsoon. Waxa uuna soo jiitay indhaha soo saarayaasha aflaamta sameeya. Sanjay Dutt waxa uu haystaa in ka badan 10 abaalmarino oo heer sare ah iyo 15 kaalinta labaad ah. Filimada uu jilo Sanjay Dutt badankooda waa dagaal iyo rabsho, inkastoo sanadahan dambe uu u batay dhanka qosolka ama shactarada. Sanjay Dutt waxa uu ka soo dhex muuqday in ka badan 125 filim, qaarkoodna uu soo saare ka yahay. Sidoo kale waxa uu ka mid yahay jilayaasha ku luuqeeya heesaha filimada ay jilayaan ku jira. In ka badan 20 filim ayuu codkiisa ku heesay. Sanjay Dutt aabihiis waxaa lagu magacaabaa Sunil Dutt, hooyadiisna waxaa lagu magacaabaa Nargis. Labaduba waxay ahaayeen jilayaashii ugu magaca dheeraa ee soo maray wadanka Hindiya. Hooyadiis Nargis waxa ay geeriyootay sanadka markuu ahaa 1981 iyadoo u dhimatay wadna xanuun. Aabihiis Sunil Dutt waxa uu geeriyooday sanadkii 2005. Sanjay Dutt waxa uu haystaa diinta Hinduuga, inkastoo dadka qaar ay ku sheegaan waa Muslim. Waxaa sidoo kale la sheegaa inuu aad u jecel yahay diinta Muslimka maadaama la sheego inay hooyadiis ahayd Muslim. Sanjay Dutt waxa uu aad u jecel yahay inuu ku ciyaaro waxyaabaha halista ah sida hubka iyo bambooyinka. Sanadku markuu ahaa 1992 bishii December, Sanjay Dutt oo ka qayb galaya xaflad uu qabtay jilaagii dhintay ee Faroos Khan ayaa waxaa lagu xiray eedeyn ah inuu ka ganacsado hub sharci darro ah. Mar labaad ayaa waxaa lagu eedeeyay 1993 qarax ka dhacay magaalo madaxda ee Hindiya, isagoona soo qaatay ciqaab 16 bil ah oo xarig ah. Waxa ayna diiday maxkamadda sare ee dalkaasi inay siiso kafaalad, waxaana mar kale sanadkii 2001 December lagu qabtay qoriga loo yaqaano AK-47 iyo 55 qori oo kale. Hase ahaatee 2007 ayaa ciidanka dambi baarista soo qabtay nin lagu magacaabo Daud Ibrahim, kaasoo ahay madaxa kuwa ka ganacsada hubka, isagoona cadeeyay inuusan aqoon fiican u lahayn Sanjay Dutt, uuna kaliya ka iibiyay bastoolad, sidaana maxkamadda ay ku sii daasay Sanjay Dutt. Sanadkii 1987 waxa uu guursaday Sanjay Dutt gabar lagu magacaabi jiray Richa Sharma, waxayna u dhashay gabar lagu magacaabo Trishala oo haatan ku nool dalka Mareykanka. Hase ahaatee xaaskiisa ayaa ka geeriyootay. Sidoo kale Sanjay Dutt waxa uu jecel wada dhex maray atriishada Madhuri Dixit, balse Sanjay Dutt ayaa nacay kadib markii ay marqur ah kusoo booqan weysay xabsiga, isagoona ku xumeys uu ku xumeynayo u guursaday xaaskiisii labaad ee Riha Bilal, taasoo ay kala tageen 2005. Mar saddexaad ayaa waxa uu guursaday 2008 gabar lagu magacaabo Manyata Dutt, ilaa iyo xilligaani ay wada nool yihiin. Sanjay Dutt waxaa la dhalatay gabar lagu magacaabo Barya Dutt, waxaana qaba jilaaga Kumar Gaurav. Sanjay Dutt waxa uu xiiseeyaa filimaanta ay jilayaan jilayaasha Dharmender, Sunil Dutt, Amjad Khan iyo Amitabh Bachchan. Dhanka dumarkana Hema Malini iyo Sara Devi. Waxa uu sheegay Sanjay Dutt marka uu la jilayo aflaamta jilayaasha kale ah Sunil Shetty, Balwan iyo Aditya Bengali Shankar inuu filimaantaasi xiise gooni ah u qabo, maxaa yeelay labadaasi jilaa ayuu aad u jecel yahay inay la jilaan filimaanta. Sanjay Dutt 10kiisii sane ee ugu horeysay wax guuldaro ah ma uusan kala kulmin Bollywoodka. Filimkiisii ugu horeeyay waxaa lagu magacaabaa Rocky, waxa uu soo baxay 8 May 1991. Filimkiisii labaadna waxaa la oran jiray Vidata, wuxuu soo baxay 3 December 1982. Filimkiisii saddexaad Sajan 1991. Filimkiisii afaraad Sadak 1991. intaba waxay noqdeen kuwa wada guuleystay. Intaasi ayaan kusoo koobayaa taariikhda jilaaga caanka ee Sanjay Dutt.